kulanti wacan oo wanaagsan daawadal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janalkeena kulmiska wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona afayeenka guud ee ururka al-shabaab Ali Maxamuud Raagi Cali Dheere ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay kacdoonka shacabka ee qabaa'ilada ay sabaabuleen dagaalka la gala ururka al-shabaab. Cali Dheere muxuu ka yiri digniin adag ayuu u jiray hanjabaadna u jeediyay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa daawan doontaan dowladda Soomaaliya suqudeedu waa ay ka jawaabtay hanjabaadii iyo hadalkii ka soo yeeray Cali Dheere taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya General Biixi ayaa dhankiisa si kulul uga hadlay hadalkaas muxuu ku yiri digniin iyo nasteexeen ayuu u soo jeediyay Cali Dheere ma qaadan doonaa waa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo daawan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isku yeeray gudahoosaadka golaha wasiirada soona saaray amar ku socda markaas in la dhaqan geliyo heshiiskii Soomaaliya heshiiska dunida heshiis la ah ee halgudhigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waan idin soo gudbin doonaa Siciidan wuxuu qaaday tallaabo uu General Abshir London ugu wareejiyay hadaba maxay tahay tallaabadaas waan idin soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa iyo macluumaadka kale soo kordha oo wararka kaalmaha caalamka diblomaasiyadda qaybka aaska boqorada waddanka Ingiriiska Queen Elizabeth oo maanta la aasayo waa daawan doontaan fadlan haddii aad nagu cusubto subscribe ka saaro gambalkana furo una share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno afayeenka guud ee al-shabaab Ali Maxamuud Raagi Cali Dheere ayaa markii ugu horeysay si qoto dheer uga hadlay kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee ka codsay gobolada dalka ee dagaalka u cilaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Dheere ayaa khudbadan ka jeediyay kulan ay al-shabaab ay ugu magac dareen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isagoo oo sheegay inay jiraan qabiilo garab u noqday waxa ugu yeeray gaalada. sidoo kale Cali Dheere ayaa xaaladda kacdoonka ee maanta ay wajahayaan wuxuu ku macneeyay inay la mid tahay tii uu wajahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waayeysi harganka. al-shabaab waxay soo kala kareen in dowladda Soomaaliya ee qabaa'ilka ee markaasi ku hubeysay wuxuuna afayeenku uu hadlay kooxdaas qabaa'ilka la dagaalamaya oo ku tilmaamay kuwii isbaarooyinka dhigan jiray sidoo hadalkiisu dhigay Ali Maxamuud Raagi Cali Dheere afayeenka guud ee al-shabaab. qabaa'ilkaas waxaa leeyahay waxaa la doonayaa in dano gaar ah la idinku gaaro kadibna meel cidla ah la idinkaga tago idinku halgamayay ayuu yiri Cali Dheere. sidoo kale afayeenka al-shabaab ayaa u hanjabay qabaa'ilka kacdoonka wada isagoo sheegay in reerkii ama jifo kasta oo ka hortimaadana al-shabaab oo la dagaalantay ay belaha markaas u tahay gacanta iyo seefta kooxda ayna qaadi doonaan in dhibaato culus ay u geysan doonaan si hadalku dhigay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa la socda. waxaan leeyahay dhaarta aad dhaarateen ayaa inoo dhaara laba dhaar ma jirayso waxaan rajeynayaa in waqti aan ku kala bixi doono dagaalka ayuu hadalkiisa ku sii daray afayeenka al-shabaab Cali Dheere. hadalka Cali Dheere ayaa ku soo aadaya xilli awoodda al-shabaab laga soo wiiqay goobo badan oo ka mid ah gobolada Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Baay iyo Bakool. soo kale meedka la dagaalamayaasha al-shabaab oo aad markaas loo laayana lagu soo bandhigay goboladaas. kacdoonkii ugu cuslaa ayay wajahaysaa kooxda al-shabaab kadib 15 sano oo Soomaaliya ee dagaalo dad badan galaaftay ka wadeen. dowladda Soomaaliya ayaa dhiirigelin xoog leh markaas la garab taagan meelaha Soomaaliyeed ee isku abaabulay qaabka qabiil ee markaasi la dagaalamayaasha al-shabaab. isla wararkaas ayaan ku jirnaa dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda ka soo hadashay warka ka soo yeeray afayeenka al-shabaab Ali Maxamuud Raagi Cali Dheere. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Biixi ayaa ka jawaabay hadalkii afayeenka al-shabaab Cali Dheere kaas oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka ay iclaamisay dowladda Soomaaliya iyo kacdoonka shacabka ee wadaan. General Biixi oo wareysiinayay warbaahinta dowladda wuxuu sheegay in hadalka Cali Dheere uu dhageystay balse uu la muuqday catow ay ka keentay guuldarro kooxda ka soo wajahday fagaarayaasha dagaalka si uu hadalku dhigay. horta Cali Dheere iyo shabaab waxaa la yahay kala daaya in caruur aad leysaan kadibna aad dhahdaan alxamdulillaah. calaacal Cali Dheere waa dhageystay waxaana iga muuqatay buuri inay ku guuldareyseen dagaalkooda wuxuusnimada ah ayuu yiri General Biixi. taliyaha ayaa sheegay in dhibaatada haysta al-shabaab ay hormuud u yihiin shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer ay soo dhibaateynayeen isagoo sheegay in kacdoonka shabaabku uu sii xoogeysanayo markaan. Cali Dheere maanta inuu calaacalo waa gar laakiin weli Jaanis ayaa u furan aad ku soo dhiibo gacanta dowladda oo kuwa la qaldayna mid walba hortiis ha u carro weli Jaanis baa idin furan ayuu yiri taliyaha dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Biixi oo warbaahinta dowladda la hadlayay. afayeenka guud ee al-shabaab ayaa waxa uu markaas dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka fogaadaan maadaama goobaha ay joogaan ay weerar doonaan isla markaana tallaabooyin ay qaadi doonaan.
hanjabaadaha iyo hadallada xanafta leh ee hawada isku marinayaan al-shabaab iyo dowladda ayaa hawada isku sii shareeraya marba mar ka dambeysa iyadoona xiisada ay sii kulaanayso dagaalada al-shabaab looga soo horjeedana guud ahaanba ka socda dalka iyadoona dhankooda shabaabka qudhoodu ay markaas ay qaadayaan weerar jihaadi ah qabii dhexe ee janalkeena kulmiska wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtahay subscribe wasaare gambalelkana furo una sheer gareeya saaxiibadii meel kastay joogaan idinkoo kumatiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shir gudoomiyey kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tiirka Soomaaliya heshiisa oo kamid ah 6 tiir oo qorshaha xukuumadda dan qaran ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska xamse kulankan waxaa lagu soo bandhigay qaab dhismeedka guddi hoosaadka iyo qorshe howleedka hortaminta u leh horyaalka markaasi xubnaha guddiga wasaaraha ayaa faray xubnaha guddi hoosaadka inay la yimaadaan howlkarnimo iyo dadaal dheeraad si loogu gungaaro hirgelinta halbeegyada ugu degsan kuwaas uu tilmaamay inay aasaas u yihiin xasiloonida siyaasadeed iyo horumar la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska wasaaraha ka soo baxay wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tan iyo markii golihiisa wasiirada soo magacaabay wuxuu bilaabay dardargelinta shaqooyinka golaha wasiirada isagoo xukuumaddiisa ugu yeeray ama ugu magac daray dan qaran dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Sida Cabdullaahi Deni ayaa shalay booqday taliska konton afraad ee ciidamada difaaca Puntland halkaas uu kulan kula yeeshay taliska ciidamada difaaca kulankan ayaa waxaa madaxweynaha ku weynayay guddiga la taliyaal ah oo uu qaabilan arrimaha difaaca iyo dhismaha ciidamada waa soo dhawaana soo magacawday madaxweyne Deni kulankan xogaha laga helay waxa ay sheegayaan in dhammaanba howlihii ciidamada iyo maamulka markaasi miisaaniyadoodii lagu wareejiyay taliyaha cusub ee daraawiishta General Abshir London waxaa xusid mudan in markii hore howlaha ciidamada iyo tirakoobkooda gacanta ay ku hayeen guddigii dib u habeynta ciidamada Puntland oo hogaamiye u ahaa wasiirka maaliyadda Xasan Abshir Abgaala sidoo kale kulankan waxaa lagu gaaray in hadda kadib wixii la xiriira dhismaha ciidamada ay wada shaqeeyaan la taliyaha cusub iyo taliyaha cusub ee daraawiishta iyo la taliyaasha madaxweynaha ee dhinaca difaaca wararka ugu dambeeya arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadan waxaa ka mid ah saxbel magaalada London ee dalka Ingiriiska maanta waxaa lagu daa in lagu aaso boqorada waddankaasi Ingiriiska Queen Elizabeth II ama Queen Elizabeth II oo markaas geeriyootay waxaan ka qaybgelaya madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron madaxda dalalka caalamka iyo qaar ka mid ah kuwa Afrika oo ka mid ah madaxweynaha waddanka Kenya William Samoei Ruto wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madax kale oo dalka Afrika ka tirsan iyo qaaradda Yuruba ayaa markaasi saxiix buuga tacsida haweeneyda Queen Elizabeth II waxay dalkaas soo maamuleysay wax ka badan 70 sano iyadoona markaas ahayd adeedu 96 sano jir waxaana markaa xilkeeda imika la wareegay ama dhaxlayba wiilkeedii Charles-ka saddexaad oo markaas asigu noqday boqorka waddankaasi Ingiriiska hadda sanadaha soo socda oo xukumi doono ilaa uu markaas sin qudhiisu uu ka baqtinayo ama uu ka geeriyoonayo wararka ugu weyn ee Soomaaliya caalamka janalkeena kulmiska wararkan waa naginta haddii aad ku cusubtahay subscribe wasaare gambalelkan furo una sheer gareey saaxiibadiin meel kasta joogaan aad baad u mahadsantiin